25 sano oo xiriir waxaa maalinba tallaabo loo qaadayay si ay u kamilanto dawladnimadeennii sibiqda kulantay. bilow nooca dawladnimo ayaa la isla qaatay, waddankiina waa iyada federaal lagu soo dabaray. xafiisyada dawlo, madaxtooye, wasaaradda ilaa hay-ado ayaa mar kale iftiimay. baasaboorkii dalkuna waa iyadii dib loo bixiyey, waxaana mar kale toosay nidaamka bixidda iyo soo gelidda dalka, taas oo garoomo casri ahna ay ku dhismeen. xasiloonida Soomaaliya si guud gaar ahaan caasimadii burburka ugu daraa ayaa maanta cayn kana dariiqyadii shubku ku banidnaa waa iyaga furmay, ganacsigii waa kan bulaalay oo saraha dhaadheer leeyay. adeegyadii waxbarashada ayaa saldhigtay, aroor walbana waxaa dugsiyada barbaarin ilaa iyo jaamacadu dareera kumanaan kun. goobihii caafimaadka ayaa dhankooda xoogaystay. dulucduna waa in horumar loo qumay Soomaaliya, qof walbana kaalintiisa xajinayo. guulaha Soomaalidu wadajirka u gaartay qof ilaa dawlad waxaa wali socda hannaanka geedi socodka dawladiska oo maalinba tallaabo hore loo qaadayo. kaalimaha hirgelintooda loo guntaday oo aan wadanna sina uga maarmin waxaa ka mid ah kaarka aqoonsiga qaranka iyo diiwaangelinta dadweynaha, taas oo xukuumadda xilligan joogta ay ku dhiiratay hirgelintiisa. dowladda federaalka Soomaaliya waxay garwaaqsatay oo muhiimadda koowaad siisay in la helo aqoonsigii qaranka. National ID ama kaarka aqoonsiga qaranku waa sumadda muwaadinka. qof walba oo nidaamkan maray waxa uu mulkiyay kaar leh baadiso iyo tirsi u gaar ah oo aan cid kale la wadaagin. kaarka aqoonsiga qaranku waxa uu xakamo u yahay jaantaa rogantii dalkeenu ku raagay oo markan laga raysanayo, waxaana helistiisa yaraynaysaa caqabadihii muwaadiniinta ka qabsan jiray adeegyada asaasiga ah. 10 milyan oo qof dad ka badan 12 milyan oo qof baasaboor haysto oo siday ku heleen Ilaahay og yahay waa la saxa kaarkaad soo qaadanay. haddaba si loo sugo aqoonsashada dadweynaha dalka waxaa la hirgeliyay hay-adda niiro oo ku dhisan sharciga aqoonsiga iyo diiwaangelinta qaranka oo baarlamaanku dalka ansixiyey bishii Maarso 2023. isla Maarso 20-keedii ayuuna madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud saxiixa ku duugay sharciga aqoonsiga iyo diiwaangelinta qaranka. maalinta waxa kale oo madaxweynuhu uu saxiixay sharciga dhowrista xogta dadweynaha oo muhiim u ah ilaalinta xogta iyo hannaanka kaydinta macluumaadka lagama maarmaanka u ah aqoonsiga qaranka. aragtida ka dambeysay waxay ahayd in waddanku laga helo adeeg aqoonsi oo midaysan, qof kasta oo muwaadin ah siinaya xaqa inuu ku helo adeegyada dawliga iyo adeegyada aan dawliga ahayn. waxaa bilowday dhismaha iyo shaqo bilaabidda hay'adda niira oo mas'uuliyaddeeda loo igmaday maareeyaha hay'addaasi Cabdiweli Cali Cabdulle Timcad. isaguna waxa uu u guntaday sidii hay'addani dhaqso hawsheeda ugu gudan lahayd. waxaa judhiiba la gudagalay dhammaystirka iyo meelmarinta sharciyada, xeer nidaamiyayaasha iyo habraacyada rasmiga ah oo gaaraya ilaa 13. kolkii tiir walba oo hay-addan mudan u ahaa la taagay, howlihii aasaaska oo dhanna meel lagu tiirshay ayaa la soo gaaray dharaartan taariikhiga ah. waa 17 Sebtembar 2023 kolkaas oo la daafuray bixinta kaarka aqoonsiga qaranka oo markii ugu horeysay si nidaamsan oo casriya dalka uga hirgalay. madasha ilyartu isqabatay ayaa ra'iisul wasaaraha dalka mudane Xamse Cabdi Barre oo adeegan qaran daafuray waxa uu bulshada u tuuragooyay ahmiyadiisa. waxaan salka u dhigaynaa maanta nidaam aqoonsi oo lagu kalsoon yahay oo loo dhan yahay. waxaan yeelanaynaa aqoonsi casri ah oo waafaqsan halbeegyada caalamiga ah ee lagu maareeyo aqoonsiyada. maalintan waxaa xirmay albaab qabyo ka dhigayay nidaamka dawladnimadeenna, waxaana furmay bog cusub oo ka mid ah kuwa ugu muhiimsan ee aan dawlad dhiskan looga maarmin. subax kale oo dahabi ah ayaa diiwaangelintu ka bilaabatay xarunta dhexe ee hay'adda niira, iyadoo ay sidaasi safaf dhaadheer u galeen muwaadiniin markii ugu horreysay loo gudayo mid ka mid ah xuquuqahooda asaasiga ah. kaarka aqoonsiga qaranku waa xuquuq muwaadin walba uu gar ugu leeyahay dawladdiisa. madaxda qaranka ee bulshadooda u guday waajibkaasi ay muddada dheer dhowrayeen ayaa mar kaleeto hormuud ugu noqday isdiiwaangelinta. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud halkan dadka kale waa kala mid. si uu isu diiwaangeliyo waxa uu maray madaxweynuhu habraaca degan ee qof waliba marayo. nolosha casriga ee qarniga 21aad walaalaha Soomaaliyeedu meel kastoo aad joogtaan lagama maarmo aqoonsiga. waa fursad u gub ah oo markii ugu horeysay dalkeena ka hirgalaysa. sidaas oo ay tahayna
waddankeenu waxa uu daris badan kaga horeeya la jaanqaadka tiknoolajiyadda casriga taas iyada oo laga duulayana waxa kaarka aqoonsiga qaranka laga dhigay mid digital ah sida dunida horumartay waa document muujinaya qofka adiga aad tahay taa oo kuu sahlayso inaad wixii adeeg u baahan dhinaca shuruucda dhinaca hay'adaha dawladda dhinaca private sectorka meel kasta oo markaa aad ugu baahato adeeg ay kuu sahli karo inuu kuu fududeeyo bilowgii hay'adda NIRA oo garowsan hawshan baaxadda leh ee hortaal iyo mas'uuliyadda qaran ee loo igmaday ayaa qorshe quman ku wajahday sidii adeegani dalka oo dhan ugu baahi lahaa hor iyo horaan waxaa la tababaray oo la shaqo geliyay in ka badan 750 howlwadeen si loo fuliyo sharciyada hay'adda loona ilaaliyo mas'uuliyadda qaran waxaa howlwadeennada tani la mariyay dhaarta ilaalinta xogta muwaadiniinta ee dhowrista u baahan waxaa howlgelin lagu sameeyay qalabyada kaabaya adeega hay'adda kuwaas oo isugu jira mashiinada daabacaadda kaararka aqoonsiga ah oo casri ah iyo in ka badan 550 qalabyada diiwaangelineed oo u diyaarsan inay joogto u shaqeeyaan diiwaangelinta ka bilaabatay xarunta dhexe ee hay'adda waxaa xigtay in bilo kooban gudahood lagu xijiyo laamo ka furma degmooyinka Yaaqsha Wadajir Shangaani ilaa Howlwadaag ilaa shaqadu ku baahday Muqdisho oo idil una gudubtay dowlad goboleedyada iyo degmooyinka kale ee dalka shaqada socotay inay hana qaado waxa qayb libaax ka qaatay baraarujinta bulshada iyo wacyigelinta joogtada ah ee aan marna laga gaabin waxa hay'adda aqoonsiga iyo diiwaangelinta qaranku markasta diyaar u tahay qof kasta oo Soomaaliyeed degmada uu degan yahay ee magaalada uu degan yahay in loogu geeyo adeega kaarka aqoonsiga qaranka hay'adda NIRA laanta koonfur galbeed wayba mudnaanta koowaad siyaasi dhowrowka xogta dadweynaha xilligan waxaa dadweynaha loogu adeegaa 55 xarumood oo ku biliqsan dalka oo dhan sidoo kalena waxaa ka howlgala 20 kooxood oo guurguura waxaana xasuusin mudan in meelaha qaar hay'addu ay shaqada wado xitaa xilliyada habeenkii waxaa muuqata inuu korayo oo shaqaalaha howlwadeennada ahi ay shiftiyo badan u qaybsamaan in xarumuhu sidaas caawa loo daafuray habeennimo kuwa shaqayn doonaa inay jiraan markii gudaha dalka ay shaqada mugale ka qabsoontay welina socoto ayaa NIRA waxay adeegan qaran ka tallaabisay xuduudaha iyadoo aqoonsiga la gaarsiiyay in ka badan 30 safaaradood oo dalkeenu uu ku leeyahay wadamo kala duwan goobahaas waxaa hay'adda aqoonsiga iyo diiwaangelinta qaran ku gaarsiisay qalabkii shaqada oo dhammaystir tiyo tababar loo sameeyay howlwadeennadii barahaas si muwaadiniinta adeega loogu geeyo meel ay joogaanba hay'addu intii ay socotay shaqadaas waxay diiwaan gelisay in ka badan milyan qof iyadoo hay'addu ay maalintii gaartay inay u adeegto dad gaaraya 17,000 oo qof 12,000 oo qof oo diiwaan gelina iyo 5,000 oo qof oo ID card bixina hay'adda NIRA waxa ay muddadii 2 sano ahayd ku guuleysatay marka laga yimaado diiwaangelinta iyo bixinta kaararka aqoonsiga hirgelinta adeegyo uu ka mid yahay hubiye si loo sugo aqoonsiga shakhsiyaadka loogana hortago xatooyada iyo been abuurka la xiriira aqoonsiyada ayaa la isticmaalayaa tiknoolajiyadda casriga ah ee xogdhalyada biometric soo siyaadina adeegyo u saamaxaya dadka Soomaaliyeed in ay isku hubiyaan adeega sida hubiye oo aan siinay hadda ay ku xiran yihiin institutions gaaraya 24 institution oo kala duwan oo kuwa dawladeed oo waxbarashadu ka mid tahay iyo bangiyo private ah oo ay anoo kaashtanana bangiga dhexe ee dawladda hay'adda NIRA iyadoo oo la jaanqaadaysa qorshaha qaran ee danabeynta iyo casriyeynta adeegyada dawladnimada e-government oo u sahlaya muwaadiniintu inay helaan adeegyada hay'adaha dawladda iyada oo laga faa'iideysanayo tiknoolajiyadda ayay soo kordhisay e-aqoonsi oo ah hanaan ay muwaadiniintu kula deegi karaan nuqulka kaararkooda aqoonsiga qaran oo digital sharci ahaanna la mid ah kaarka lafta ah oo ay ku isticmaali karaan adeegyada online-ka waxaa kale oo la hirgeliyay nidaamka isdiiwaangelinta horudhaca ah oo isaguna ah nidaam qofka u suurtagelinaya inuu ka hor inta aanu tagin xarunta NIRA si online ah u buuxin karo dhammaan xogta aasaasiga ah ee looga baahan yahay si ay ugu sahlanaato diiwaangelintu waxaana hay'addu ayba furtay nidaamka online-ka ee shahaado bixinta ah oo ah madal digital ah oo loo sameeyay in lagu dardargeliyo bixinta shahaadooyinka isdiiwaangelinta tabtaas oo kale ayay hay'addu waxay diyaarisay nidaamka tirsi oo ah madal guud oo suurtagelinaya in si sahlan ay dadku uga helaan dhammaan adeegyada NIRA ay bixiso waxaan rajaynayaa ilaahay idinkiis inuu gaaro qofka muwaadinka Soomaaliyeed sida meelo badan ka jirta asagoo gurigiisa jooga
inuu wax alla wuxuu maanta u baahnaa ee adeegaha gurigiisa ka helo. kolkii aqoonsiga qaranku dalkeena ka hirgalay waxaa toosay nidaamka waddanka oo asaaskiisu uu saldhigtay dowladduna waxa ay ku guulaysatay in la isku xiro aqoonsiga qaranka iyo adeegyada bulshada sida baasaboorka laysanka gaadiidka socdaalka bangiyada waxbarashada kharash bixinta dowladda iyada oo la dhaqan geliyey adeegsiga saxiixyada dijitaalka ah ee ku lamaan kaarka aqoonsiga qaranka baahida ay maaragtay aan u qabnay inay waxaan yihiin wax la hubo oo lagu ilaalin karo qofkuna uusan mar labaad ama magac labaad uusan samaysan karin saxiixiisuna mid dhaqan gal ka yahay dowladda oo Soomaaliya oo dhan markay hadana systemkan ay isticmaalayso waxaan ku raadaa asafamiska hayaanka dalkeenu ugu jiro inuu gaaro isku filnaansho dhaqaale waxa ay xukuumadda hadda joogtaa u aragtaa in lagu gaari karo nidaam dhaqaale oo ay hagayaan private sector waxaana gaaridda yoolkaas lafdhabar u ah in ruuxu uu yeesho tirsi u gaara oo ka soocaya dadka kale oo dhan si loo ilaaliyo hufnaanta iyo ku dhaqanka shuruucda caalamiga ah ee dhaqaalaha dhibaatooyinka baanankeena adduunka ka haysta buu furow yahay in qof wal oo Soomaaliya la yiraahdo wuxuu leeyahay national ID xujadii ugu weyneyd ee hortaagneed inuu ka baxaynaa maanta mar haddii alxamdulillah oo dalkeenu yeeshay aqoonsi qof waliba qaadan karo hay-adda diiwaangelinta iyo aqoonsiga qaran ee NIRA oo ka duulaysa hiigsiga mustaqbal ee u degan waxa ay mar kale bulshada xasuusinaysaa in aqoonsiga qaranku uu yahay mid sugan oo damaanad qaadaya in xogta muwaadinku tahay mid dhowrsan si waafaqsan qorshaha istiraatiijiga ee NIRA 2025-2029 yoolka hay-addu waa in la diiwaan geliyo 15 milyan oo qof oo Soomaaliyeed taas oo horseed u noqon doonta ka dhabeynta yoolasha qaran ee qorshaha isbeddelka qaranka